kuman baa yuusuf fu'aad yuusuf cali dhibaatada maanta kaniifka dhex seexisay kun bay haysataa dee keeni ka hadlaba idhaahda cadaalad darrada iyo noloshani maaha caadi kaniif la dhex seexin maayo haddii xalku noqoto ina kaniif la dhex seexiyo dee jabuuti oo dhan kaniif u hela jabuuti oo dhan ayaa soo socota oo kacde kaniif ha loo helo annaga cidna adeegsanaysana ma jirto waxaa haddii awal niga dhegaysanayay ay nii shaqaynaysay wax haddeeta soconaya oo la aqbalayo maaha cid dhag u dhigaysaay ma jirto wararkiinan markaa dhulka fadhiista naftiinana ha daalinina dadkana ha daalinine dhulka iska fadhiista mid kalaan maxaa la idhaahdaane u sheegaya ninkan tviyada ka soo baxaye iyo ku doonaba ha ahaadee anu magacdooda maba kala aqaani xitaa kuwan reesoga soo dhiga magacdoodaba ma aqaani cidda yihiinna ma garanayo mid baan u sheegayaa rag directeer ah oo minister leh oo dibitee leh oo wuxuu doonaba leh ayay ubadadoodii xaasiskoogii qurbaha ku nool yihiin hay uu halkani kooraan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وبلن آدم حسن waxaa maanta isoo galiyay horta marka uu horeysa waxaan salaamayaa reer Djibouti meel walba joogtaan dal iyo dibadba waan salaamay salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waxa maanta meeshaasi soo taagay walaalahayo waxa weeyaan maalmahan dambe waxa tviyada laga wado amba baraha bulshada aad uga socda dad ku sheekeynaya dadka maanta soo baxay in ay dad soo dirayaan oo dibadda laga soo adeegsanayo oo sheekooyin caynkaasa waranaga waxna adeegsanaya ma jirto cidna la soo hadashiin oo baxna tirahdina ma jirto dad dhibaataysan baan nahay annaga ayay dhibaatana haysataa annaga ayaa wadanka dhexdiisa ku gaajoonayna oo ku dhibaataysan kuman baa yuusuf fu'aad yuusuf cali dhibaatada maanta kaniifka dhex seexisay kun bay haysataa dee keeni ka hadlaba idhaahda cadaalad darrada iyo noloshani maaha caadi kaniif la dhex seexin maayo haddii xalku noqoto ina kaniif la dhex seexiyo dee jabuuti oo dhan kaniif u hela jabuuti oo dhan ayaa soo socota oo kacde kaniif ha loo helo annaga cidna adeegsanaysana ma jirto waxaa haddii awal niga dhegaysanayay ay nii shaqaynaysay wax haddeeta soconaya oo la aqbalayo maaha cid dhag u dhigaysaay ma jirto wararkiinan markaa dhulka fadhiista naftiinana ha daalinina dadkana ha daalinine dhulka iska fadhiista mid kalaan maxaa la idhaahdaane u sheegaya ninkan tviyada ka soo baxaye iyo ku doonaba ha ahaadee anu magacdooda maba kala aqaani xitaa kuwan reesoga soo dhiga magacdoodaba ma aqaani cidda yihiinna ma garanayo mid baan u sheegayaa rag directeer ah oo minister leh oo dibitee leh oo wuxuu doonaba leh ayay ubadadoodii xaasiskoogii qurbaha ku nool yihiin hay uu halkani kooraanku u bilaash yahay uu aqalku u bilaash yahay uu raashinku u bilaash uu maxaa la idhahdaane lacagti ciidanka u yaray ilaa gaardiyaanku u bilaash tahay ayay faamiyadoodu qurbaha ku nool yihiin waaba inteena beerka dhuga ku haysay marka dad la adeegsanaya ma jirto cidna adeegsanaysayna ma jirto dadkaasi soo hadlaya dibad ka soo hadlaya ku madaxa ahaado shicibka kale dee gaajada ka cararay ha ahaato iyo xadhiga ka cararay ha ahaato waano ayna soo waaniyaan maahine wax kale ay annaga maxaa la idhaahdaane na isticmaalay annagu aqli baan ku soconnaa ilaahay aqli buu na siiyey damiir buu na siiyey cay weeyaan marka la leeyahy waa la adeegsanayaa cay na noo badheedhay weeyaan waa badheedh oon lala soo gaban oo saani na noo soo adeegsaday ya cabdillaahi cabdi baa yidhi waa dad maxaa la idhahdaa baadiyay u badan yihiin buu yidhi baadiyo waa dad bili aadan ah baadiyo waa dad aqli leh oo fikiraya oo damiir leh oo wax diidi kara weeyaan baadiyuhu aad sheegaysid baadiyo waa waxaad shalay la wada ahaa eed wada ahaydeen maanta ma wax la isku caayuu noqday
marka waxaan leenahay dadka ina waxa la iska dhaadhicinin dad dibadda maxaa la yiraahdaa adeegsanaya ina la iska dhaadhicin dad kale waxa jiroon wuxuu sheegayaa basaska dhexdooda ajoonyaa jirta baska sii raaca balaas kaste beekaadus inta ka raacaan be barasrambo ku dhaadhacaan barasrambo inta ka soo raacaan be balaaska beekaadus ku dhaadhacaan meel aliya meel ay galaan lama garanayo baski dhexdiisay hebel baa la xidho hebel kala dadkii soo baxay laba sano la xukumay warnin sharaf leh oo wax diiday oo baadil lagu xidhay waa sharaf horta waa karti labadii sano u buuxsamina uu soo bixiyo shicib baa soo saari ku doona baa ahaado cid la xidhana ma jirto ina been la isku sheegin ina basaska halka bay socotaa cabsidu iyo gargariirkoogu ya ajoonyana basaska la sii shirshira xayaabley ka sii raaco ka soo raaca la iraahdo fuaad hadalkii uu idhina nin walbo de garaad leh ya maskaxdiisa gali mayso inay tahay hadallo la googoonayo wax la isku dhex dardaray waa la iska arkaya waana la fahmay ajoonyada basaskan sheegaya waa ka ninkii shalay lahaa waa la dilay maantana waa ka ku sheekeynay leeyma dilin oo cidiba ilama hadasho 21 gabood baa la keenay buuri 21 Djibouti baa la keenay mu oran meeshii kale bukaac sheegay lagu qoryeynay way gooyeen deyntii intii warka way ka gooyeen marka dadku hadita aad baadiye cawaan ku sheegaysiin waa la kacay dhalinta reer Djibouti haddaan nahay waxa aan doonay inaan ka iraahdo siiba inamada yar walaalahayow dad nidaam u socda ahaada haddii ilaahay iraahdo wixii buuq wada ee waxbaan gubaynaayo waxbaan dhacaynaa leh weli wax la gubayanba wax la dhacay ma aragay nagu soo darsan doono ina aan diyaar u noqono inaan gamcihiina ku qabanno aan xidhxidhno oon bacad ka dhigno dikadaha bacadka ayaan dhigaynaa iyagoo x aan u xidhnay iyo w ayaan bacad ka dhigaynaa bacadka ayaan dhigaynaa oon kaga dhaqaaqaynaa annagu burbur kaad sheegaysiin macnaha burburkeeda haysatiin de ya war waxbaan diidnay waxaaba nagu qaali waxaan baa sidana ma burburba de haysta burburka micnihiina annaguna micno kalaan haysanaa wixii burburinay waan xidhaynaa annaga gamcihiina ku xidhxidhayno dikada dhigaynaa oo iska qabanayna annagoo nidaam u soconna oo si sharaf leh u soconna ayaan waxaan doonno gaadhaynaa waanan gaadhi doonaa marka inaan dadkaas ka qabano inaan xadhka guryaheena ka soo qaadano ya qof walba gurigaaga xadhi ka soo qaado dadkan xidhxidhana way badnaan doontaa annaguna waan weynaan doonaa waanan gaadhi doonaa guul haddii ilaahay idhaahdo wassalaamu calaykum waxaan kaloon xagga ka salaamayaa oorida fuaad yuusuf cali walaashay samir yeelo dhexda xidho dhibaatadaa ku gaadhayna ilaahay abaalkeega maxaa la idhaahdaane waad heli doontaa haddii ilaahay idhaahdo odaygaaguna soo bixi maayo dhulkii oo sidii ah wixii uu maanta u galay oo waxba iska bedelin odaygaaguna soo bixi maayo dhulkoo siduu doonayay noqday ayuu soo bixi doonaa haddii ilaahay idhaahdo way hagaagi adkayso wax yar baa ka hadhay ya fuaad inaa la sii daayo laguma fadhiisan maayo oo loo joogi maayo taa maanka geliya baroortu orgiga ka weyn waad fahanteenna baroortu orgiga ka weyn waanad fahanteen fuaad inuu reerkiisii ku soo noqdo dhulkii oo sidiiya isagoo bilaa shaqa oo bilaa mishahar oo wax walba waa waxaan soconayn halkaa ku adkayso walaalkayow wax yar baa hadhay samiroo adkayso intii badnaydba waad adkaysatay wax laguu reebayna ma jirto haddeeta way dhammaatay walaashay adiguna samiroo adkayso maalin quray ku xidhan tahay maalin qura oo weliba dhowr saacadood ayay ku xidhan tahay bukaaca waati noo sheegtay allah ka jisaay siiye ya shandadii waa la xidhxidhay tiri
dee annaga un bay noo hadhaynaan dee hay wid nidhaahno waanan odhanaynaa haddii ilaahay idhaahdo diyaar baanan u nahay waanan soo baxaynaa si baaxad weyn leh waanan xidhxidhaynaa wixii rashbad wada dee dowladday ogaada haddaad leedihin waxaan la dagaaltamaynaa kuwa maxaa la idhahdaani wax gubaya ee wax dhacaya annagaa nii qabanayna annagaa hawsha nii fududaynayna nidaamkeegiina waan u soconaynaa wasalaamu calaykum waan ni wada salaamay meel wadbood joogtiin asalaamu calaykum